han iyo sababahan shirkan isugu nimid oo runaanti ka dharagsan in waxaan maanta rabnay in halkan uga hadalno Cabdiraxmaan ku soo dhawo ujeedada shirku sidoo inoogu sheegay Xuseen Fiin warqadana ku qoran sidee looga digtoonaan karaa fikradaha qaldan ee argagixisadu ku xajiimeynayaan diinta islaamka horta ajandahan iyo shirkan sida aad ogtihiin baan malaynayaa waxa inoo soo qaban qaabiyay masaajidka waalana noo sheegay in shirkani maalintan dhacayo waalana nagu casuumay haddii markaa aynu ka hor aynu heli lahayn chance aynu ku falanqeyno ajandaha ballaarino waxyaabo kale ayaan ku dari lahayn laakiin imika maadaama oo ajandihii one item ka yahay kaasun baynu ku eekaanaynaa anigu shakhsi ahaan magaaladan Boston in badan baan joogay ninbaa wuxuu odhan jiray alla meel lagu jabay maxaan u soo jaqin la weynaa yacni in badan baan hawlahan soo arkay iyagoo kala wada nooca aan idinka bilaabo markuu Khomeini qabsaday Iran ee safaaraddii Mareykanka la afduubay ee Iraaniintii Tehran qabsatay iyo tii nagu dhacday dadkii halkan waqtigaa joogay ha u badnaadaan Iraaniyiinta muslimka ah markaa kuwa ka dambeeyo fara badanna waa jireen tii maanta ugu dambeysana de idinkaaba indhihiina ku arkay oo joogay marka waxaan anigu qabaa wax cusub maaha qofkii aan hore u wada sheekaysanay ama hore ii maqlay anoo meel ka hadlaya intii aan odhan jirin baan maantana odhanaya taasoo ah waxa weeye waxyaabaha noocan oo kale ah ama qof diin sheeganaya ha ku kaco ama qof wax kala sheeganaya ha ku kaco marka hore waxay ku bilaabantaa waxaan la yiraahdo nacaybka hate nacaybku waa dhowr nooc mid baa nacayb qabiil ah nacayb isir ah nacayb midab ah nacayb rag ah nacayb dumarka ah nacayb xawayaanka ilaahay abuurtay halka maraya ah iyo nacayb diiniya oo qof kale diintiisa qof necbaada siyaabaha kaliya lagaga hortagi karaa aniguna noloshaydaba dee ay ku salaysan tahay kolba intii ehelkayga iyo familigayga ii dhow inaan marka horeba aanan u dul qaadan waxa nacaybka la yidhaahdo maalin haddaad maqasho oo mar labaad aad maqasho haddii aanad waxba ka odhanin macnaheedu waxa weeye silence is an agreement haddaanad wax odhanin micni waa ku raacsanta weeye qofkii khaldan ee nacayb wada anigu diinta nin bartay oo dee jaamacada uga soo baxay ma yihi laakiin qof muslim ahoo wax waan garanaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi in adeerka 2 jeer baad u hiilin kartaa hadduu khaldan yahay waad u hiilin kartaa haddii laga gardaran yahay waad u hiilin kartaa waan xusuustaa xadiiska markaasaa la garanay haddii laga gardaran yahay waad u hiilin kartaa hadduu gardaran yahay saad u hiilinaysaa de waad qabanaysaa buu yidhi waad joojinaysaa you stop him waad u hiilisa markaa aan ku noqdo nacaybka aad maqlayso haddaad maqasho mar labaad waa inaad u dulqaadan waayo waa imika sheekooyinka TV aan ka maqlayno nimankii argagixisada ahaa magaca muslimka sheeganayay ee cadaanka xagga ruushka ka yimi imika marka sheekooyinkii la bilaabo ay qof walba saasaan maqlay saasay ahayd maalin saas caynkan u noqday sidan markan u isbedelay markan sida noqotay waxaan qabaa haddii dadkii maqlayay hadalladooda ama hadalladooda ay qaban lahaayeen sidoo rasuulku faray u hiilin lahaayeen inamada muslimka ahaa inaanay tani dhacdeen innakana ceebtan dee dhakada laynaga saarayo iyo dhibaatadan aanay inoo timaadeen mid waan ogahay oo nidaamka iyo dawladda iyo sharciga waa kaa aynu maanta halkan aynu ku shiranno nabadda ku joogno cid inagu dhacaysaa inay wax ku hesheen aanay jirin
intiina xafiiska timaada marka ESL classkii citizenshipka dhigano aan barayno dadka sida ay u noqonayaan muwaadiniin Maraykan ah waxyaabaha ka mid ah oon had iyo jeer ku celceliya waxa weeye jilbaabka weynaad xidhan tahay iskamaad xidhan qaxootigii Soomaalida adduunka u kala qaxay Yurub iyo Australia iyo meel kasta isku wada mid maaha Maraykanka waxa weeye dastuurkay ku qoran tahay in jilbaabka xidhan karto cidna kula hadli karin kuwa kale kuma qora Germany kuma qora dastuurkooda waraysta dadka Soomaalida meelaha kala tagay laakiin shacbigii caadiga ha dariiq iska maray sidii maalintii dhaweyto aad TV ka daawanaysan CNN-ta ninkii taksiilaha Soomaaliga Washington wixii ku dhacay caadifadaas de qof kasta oo dadkii falka xun sameeyay magacii diinta la wadaaga askari ilaaliye lama daba dhigi kara moogtay oo badbaadiya adoo og inaad xaq adu leedahay cidna ku taaban karin caadifad baa iska jirta inakuba weyn leenahay Soomaali hadaynu nahay caadifad qabiil baa jirta aanaa jirta nin baa la iska dilaya nin baa meel baa wax ka dhacay qof aan warbu ahay nin baa dhash lagaga siinay ama la garaacay ama nafta laga qaadaya way dhacdaa marka two things number 1 horta taxaddar in la isguubaabiyo oo runta la isu sheego beenta la iska daayo dadku khuraafaad bay isu sheegaan warkii annakoo daawanayna oo CNN-tii daawan wallaahi been kuma sheegi dad waaweyn waxay ku dhahan wixii meesha magaaladeena dhamaa qamta laga dhigay ee la xidhay ee 15 kuna ciidamadii Maraykan oo dhan iskaga yimaadeen bay ku leeyihiin wax shirqool buu ahaa waa shirqool yar labadaan culug yar baa adduunka oo dhan loogu xidhay shirqool miya yani wax maskax ma ya maskax ma qof aan maskax lahayn baa waxa ku hadla ma garatay marka in runta la isu sheego oo la isbadbaadiyo oo wixii iman kara laga hortago ninka taksiilaha Soomaaliga hadda daawateen sidoo uu handle gareeyay arrinkaas si raganimo leh oo fiican buu handle gareeyay taksigiisu iska watay uu shaqaysanayay nin baa soo fuulay cadaana marka taksiilayaasha waa garanaysan magacooda xagga dambe ku yaala maxamed buu ahaa magaciisa markaasuu ay ku bilaabay uu yidhi waxaad tihiin argagixiso miidhan muslim haddaad tihiin argagixisaa tihiin jihaadis baa tihiin qurun baa tihiin markaasuu yidhi maya ma nihin isku dadku isku wada mid maaha caydii buu waday markuu arkay ninkani inuu aggressive yahay oo uu noloshiisaba khatar gelin karo buu intuu la soo baxay telefonkiisii ayuu yidhi waxaad ku hadlayso waan record garaynaya waana video garaynaya war waxaad doonto samee buu yidhi kelmadihii caydaha oo meesha ka yidhi anigu kuma celin karo waxaad doonto samee markaasuu damca gacanta la soo aado weliba waaba ku dhuftaan malaynaya soo imikana miyaad weeraraysaa bas waxaa ku weeraraya quran iyo argagixisidii bas imika 911 baan wacayaa buu yidhi waanu wacay 911kii booliiskii way yimaadeen ninkii waa la qabtay waa lala booday ilaa imika waa xidhan yahay waxaa kaloo dhacday ninkani ilaahay markuu arrimo wax ka wado ma ahayn qof caadi ah nin military ahaa kan Soomaaliga oo Maraykanka ciidanka oo u soo dagaalamay dalka Maraykanka iyo maxaan ku rahdaa wadankan oo military oo retire garoobay ka soo baxay military iska shaqaysanaya marka point-ka sheegay waxa weeye sharcigii iyo dawladdii qof walba way ilaalinaysaa laakiin shacbigii meelaha iska marayay dee bini'aadanku isku mid maaha lama wada ilaalin karo waxa weeyaan hadalkeeda ku dheerayn waxoogaa sometimes qofkii xataa su'aalo qaba ee aan meeshan public aan ku hadli karin you can always come to my office you can ask questions privately wixii su'aalaad qabto you can ask it doesn't have to be hadii jeer maaha inay fagaara qasab lagaga wada hadlo waad privatelyna waa looga hadli karaa laakiin waxa weeye wax kastaa waxay ku bilowdaan intolerance-ka iyo ogolaashaha qof kale aad u ogolaato mid adasha ha noqoto mid kula dhasha ha noqoto mid waaka aad u ogolaato inuu nacayb kobciyo bilaabo nacayb nacayb kastaba ha noqdo allahu yaclam meesha ku dambeynay qofkaas waxa malax baa ka buuxsan mise qofkii nacayb baa ka
dumar ah intaan anigu ogaa oo waxoogaa jidka lagu yara aflagaadeeyey qaar la yara jugeeyey booliiskana berigaa way si fiican bay noola shaqeeyeen hadda sanadkan waxba ma maqal kolba aniga wax leema soo sheegin haddii wax jiraanna aniga personal xafiiskayga inta qof yihiin waxba ima soo sheegin laakiin wixii dhib ee jira qofkii doonaya waa la shaqeynaa dowladda booliiska waa la shaqeynaa FBI-da waan la shaqeynaa mayorka waa la shaqeynaa governorka waa la shaqeynaa dee dalkan aanu joogno waa ku nool nahay qofkii dhiba ay haysatana waxaan xafiisku u furan yahay dee in dhibtaa laga ilaaliyo marka intaasaan hadalkaygu soo gabagabaynaya wax badanna ma sii joogiyo haddii cidi su-aal qabto waan ka jawaabi haddaan garanayo haddii kalena si gaara xafiiska maaragtay waa mahadsanti kii baan anu qaatay sagaashan iyo kowdii waxaan xusuustaa maalintan qaadanayay inaan u dhaartay dalkan sida idinkuba ugu dhaarateen inaan ka difaaco cadowga gudaha iyo ka dibaddaba giddigiina waa u wada dhaarateen de kolley anigu run baan ku dhaaranayay qofkii been ku dhaaranayna garan maayo lakiin anigu kolley run baan ilaahay hortiisa isu taagay marka maadaama aan waddani ahay wixii ay authoritiesku ay u baahdaan si ay inaka dhibaatooyinka iyo khalkhalka iyo dhibta inooga ilaaliyaan wixii aan ogahay ee aan isle cid baa ku badbaadi karta oo maraykan ah maraykanka idinkaa ku jira hadda ha isiloobina waa saas waa ula shaqeynaa mayorka same thing isaga qudhiisa maaha mayorka laakiin de xafiisyadiisa waxay rabaan bilmatal makaan that was actually a very good question maalintii falku dhacay 15 bay dhacday I think maalintii ku xigtay FBI xafiiskayga u joogtay toos bay yimaadeen waxay yiraahdeen waxaan maaragtay dawaataad arkaysa hawsha socota laakiin ma ogin wax kale oo qarsoon ma garanaysaa oo maaragtay marka community-ga waxaan u baahnay in nala shaqeeyaan hadday wax og yihiin hadday wax jiraan de waxaan waa diyaar baannay waa idiin sheegna haddaan wax jiraan waqtigan waxaan ognahay ma jirto laakiin hadday belana soo gasho waa idiin soo sheegayna haddii la yidhaahdo habkan ula shaqeyna marka armaajo waa saas weeye si kale maaha waan la socdaa dacaayadaha iyo lacib saqiirka iyo cayda iyo meelahaas maaragtay dadka la iskaga yidhaahdo qofkana bajaajuusa qolada mushaar ku qaadata waxa waa la socdaa laakiin waa ka dhabar adagnahay waxaas wax macna la maaha wishanan taysradeedan tusi lahaa hadday jirto ma ogta ya laakiin waxaas wax jira maaha marka ma kaaga jawaabay su-aashaadii cabdiraxmaan aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay clarificationkaana siisay aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay haddana waxaa weeye waktigii weli wuxuu u socdaa ninka la yidhahdo armaajo السلام عليكم anigu arrintan wax yaraan ka dhahayaa marka arrin kalena waa iskaga sii daraa inkastoo lagaga fiican yahay hadalka intiisa badan arrintan aad bay noo food saartay haddaan muslimka waddanka ku noolnahay khayr allaha siiyo culimmada magaalada joogta si fiican ayaa loogu tabaabusheystay yacni miidiyahana waanu iska celinay yacni wax loo wada dhammaa bay ahayd khaasatan anigu waan ku jiray laakiin ma ahayn dadka front runnerska kuma aanan jirin laakiin dadka gadaal ka shaqeynayaan ku jiray miidiyaha iyo TV-gana iyo journalistiyaashana dee waa naga soo bateen meel walbana way joogeen anigu hal advice aan asa Soomaali ahaan u dhihi lahaa haddii media una soo doonto hadduu media na soo doonto aanu u dayno culimada oo xoogga leh Sheekh Yuusuf iyo dadka masaajidka maamulaya inay media la hadlaan yani not everybody inuu iskala hadlo waxa issue-ga teedi kale anigu waxaan active ka ahay dhinaca politicska politicskana dee anagoo muslim ah oo Soomaali ah oo qaxooti ah yani waxaana hortaagan yani dhowr shay obstacles ah
marka waddankana xaqna waa ku leenahay laakiin haddii aanan isku imaanin 20 qof haddaanu helno oo dhalinyaro ah marka magaalada waxaan xaq u leenahay wax allaal waxaan rabnaa waa samaysan karnaa baasaboor waa haysanaa hal baxo hal vote gareeyo qasab maaha xafiiska inaan u cararo aniga inaan xafiiska fadhiyo laakiin inaanu geysano qof arrimaheena wax ka qabanaya arrimaheena noo fulinaya marka waxaan idinku encourage gareynayaa hadda waa election year weeyaan aanu support gareyno dadka wax noo qaban kara haddaa baasaboor haysatid oo register voter aad tahay warqadaa yaalo dadka annagaa naqaana madaxda masaajidkana waa kala hadlaynaa way noo imaanayaan waa la fariisanaynaa waxa annaga aan rabno haddaysan noo qabanin 2 sano kadib xafiiska waa ka saaraynaa 3 sano kadib xafiiska waa ka saaraynaa hadday noo afmiceeyaan annagu meel aan u soconno male waa joognaa marka waxaa idin dhihi lahaa dumarkana warqadahaas iska saxiixa raggana warqadahaas iska saxiixa wax allaal waxaan u baahannahayna waanu dhammaysanaynaa waddankaasna xaq baanu ku leenahay xaqayna aan ka qaadano laakiin haddaanan systemka aanan gelin xaqayna cidna siinaysa ma laha asalaamu calaykum armaajo waa mahadsan yahay insaan hore idinku sheegay wixii mawduuca aan ka hadlayna ka baxsan waxaa weeye qofkii ayay ku kooban tahay armaajo aad iyo aad u soo dhaweynayna fikradaada haddana waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka sheekh yuusuf sheekheena sheekh ku soo dhow بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ولا ليال أن إلهي سبحانه وتعالى ما إسكاله مسلمين نقدي أن ننوى فجيي كلمة التوحيد ووحى أقول قيمها بدن يقفك بن آدم كأو هلاء الدنيا آخره أن إلهي مسلمين نقدي يانا ما إسكاله وايو إسلام نمضو dadku hadba qaarkood siyaabo khaldan ha u turjinteen laakiin islaamnimada saxda ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo soo dajiyay waa wadada ugu wanaagsan ee adduunkana lagu noolaado nolol fiican aakharana mid ka sii fiican lagu noolaado insha allah hadalkan kooban anu hadalkayga siyaasad ma ahan laakiin waxaan isku dayayaa hadal kooban oo dhowr qodob ku saabsan midka koobaad waxyaabihii ka dhacay Boston ama dhacdadii xilliga marathonka dhacday iyo mowqifka diinta islaamka arrinka labaad oo ah dadka muslimiinta ah mowqifka la rabo inay ka qaataan ama la meesha la rabo inay istaagaan xawaadithta noocan oo kala marka dhacaan qodobka saddexaad oo ah wada jirka iyo ishaysiga dadka muslimiinta ah gaar ahaanna Soomaalida halkan degan waxaan aad u jeclaan lahaa shirkan inuu intaan ka balaaran yahay in intaan laga badan yahay aad bay u wanaagsanaan lahayd waxaan ka hormarsanayaa kaliya hal qodob oo arar ah oo baraarujin ah oo caado noo noqday oo ah ama muxaadara ha noqoto ama kulan saan oo kale ha noqdo ama mu'tamar ha noqdo ama daris ha kulmaan waxa caado noo noqotay wax la yiraahdo war kolley saacad baa la soo daahi doonaa waa caado aad u xun oo nala degtay waay runtii barnaamijyada dhan waa ku qasmeen diinteenni baa ku xumaatay ballanka baxyo badan baa ka dhacday baan yani qofku soo og wuxuu og yahay ku tashanayaaba inuuba ka daaha ballantaas caadadaas inaan iska goyno runtii waa muhiim oo marka la dhaho shirka wuxuu bilaabanayaa 6 barka inuu bilowdo marka la dhaho qofkii soo daahayo soo sheego anigu waan soo daahaya
waa taqaanaan xafiisyada waddankan 5 daqiiqo kadib haddaad ka badan soo daahayso waad soo wacaysaa waxaad leedahay soo daahayaahe dib ha la ogaado 15 daqiiqo kadibna cid ku sugaysa ma jirto waa lagaa tashanaya islaamka waxaasoo dhan kaga horreeyey kagana weyn walaalayaalow rag iyo dumar beentan aan isku raacnay ee ballanta dib loo dhiga ah aan iska dayno wax fiican maaha taas waa iska gawaabo tan labaad jeclahay maanta hadalkayga inaa muhiimadiisa uu noqdo saad la socotaan yacni wahmi ma ahan siduu cabdiraxmaan sheegaya wax ismoodsiisa ma ahan dhib baa dhacay magaaladan cid walbuuna saameeyey cid walba muslim iyo gaal cid walbuu saameeyey yar iyo weyn kulli wuu saameeyey xataa jumcadii maanan tukanin maalintaas masaajida lagama mataqaanaa oogin waad la socotaan soo ma masaajidka alxamdu oon filaayo in maalintaas ay walaalo isu yimid ay un dhaheen sheekhowna tuji nin walaalihii ka mida ma ahane masaajid official looga tukaday jumco anugu kolley ma garanayo dugsigii maalintii ku xigtay waan fasaxnay carrada way xirnayd yacni runtii dhibaato aad u weyn baa dhacday wixiina maanta waxay noqdeen magac ahaan dad magacii nala wadaaga weli investigationka iyo baaritaanka iyo waxay waa socdaan ilaahay baa og meesha ku dambayn doonto weli waa furanta arrintu ma lama xirin case not closed yet lama xirin ficilada noocaas ah ama ha ka dhacaan halkan ama ha ka dhacaan Soomaaliya ama ha ka dhacaan wadamada kale muslimiinta ama ha ka dhacaan Russia gudaheeda ama Yurub ha ka dhacaan adduunka meesha ka dhacaan diinta islaamku waxay ka tahay bari arrintaas waa arrin muhiim ah waana in aan si cad u dhahnaa diinta islaamku waxay ka tahay bari anugu maanta haddaan xamar joogi lahaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa warwaadku Mareykan buu joogaayo suura uma hadli karo laakiin xaqiiqatan haddaan maanta joogi lahaa xamar ama aan joogi lahaa Nairobi ama aan Makiya Madiina joogi lahaa ama Istanbul aan joogi lahaa ama London ama halkaas mowqif ayaan ka taaganahay ilaahay baanan ugu dhowaanayaa qofna kuma caragelinaayo qofnana kuma soo dhawaysanaayo arrinkaas asaga ah diinta islaamka way caddaysay waa xaraam wey waa fasaad fi lard meeshuu doonaa ka dhaco fasaad fi lard waxaana adilo badan baana caddaynaysa waa midda koobaad ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka dagaalamahayey oo markaa quraysh iyo nebiga sal alla alay slam ay is hayeen wuxuu ku yidhi la dagaalama kuwa idinla dagaalamaayo waqaatilu aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu la dagaalama kuwa idinla dagaalamaayo hana xad gudbina waa laba ciidan oo is haya sooma hana xad gudbina nebigu sal alla alay wasalama dagaaladii qaarkood ayuu wuxuu ku arkay Khalid ibn Walid haweenay baa la dilay markaas waxa la yiri Khalid baa dilay Khalidna islaamka markaa ku cusub buu ahaa markaas wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam ilaahay bari baan ka ahay waxa Khalid uu sameeyay bari baan ka ahay waxa uu Khalid sameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa markuu la dardaarmaayo oo ay jihaadka ku jireen oo calkays hayeen uu dagaal kala dhaxeeyay adduunkuna dagaal waa dhaca dagaalada adduunku way dhacaan dawladu way isdilaan wadama is dagaala mawjada lama dhahay muxuu dagaal waa dadku dagaal way is dagaalaan laakiin dagaalka la beegsado dad aanan dagaal shaqo ku lahayn islaamku shaqo kuma lahan lidalika nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhigi jiray geed ha goynina oo qof kaniisad ku jira ha dilina oo qof dagaalka carari ha dilina ka baxsi yani ana shaqo ku lahayn oo banaanka jooga ha dilina intaasoo dad ah ayuu ka soo reebay rasuulka sallallahu alayhi wasallam qof kaniisad ku jira ama macbad ku jira iska cibaadeysanay ha dilina caruur waa ciidamada la dagaalamay baa waxa hadda la dhaho adduunka loo yaqaan collateral damage taqana Soomaan collateral damage waxa waaye meel baa bamba lagu tuuray dad baa ku dhamaanay taasuu nabigu ka dardaarmaya sallallahu alayhi wasallam wuu ogyahay saxaabadiisu inaysan u qasdayn haweeney caruur inay laayaan
idan marka in iska daataa kaliya nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka dagaalamay oo uu diiday oo uu nahiyay xayawaanaadka in loo dilo sabab la'aan loo dilo wuxuu nahiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam in toog laga dhigto shimbiraha in toog laga dhigto oo qarad laga dhigto wuxuu nahiyay in ilmahooda lagu ciyaaro yani jijiilaha yarka oo shimbiruhu ay ilmahooda inay ku ciyaaraan lagu ciyaaro ama looga nixiyo ama laga qaato ayuu nahiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa tuuha intay saxaabada ayagoo nabiga la socda ay shimbir ka qaateen ilmaheedii yaraa ayay ku dulwe meeraysanayso oo ku dilbiriirif lahayd kaasuu wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam man fajjaca haadihi biwaladiha tan yaa ilmaheedii kaga nixiyey u sii daaya markaan islaamka aan kaga hadlayna waa qaacida noocaana ma aha waqca kaliya inaan mar walba uga hadalno waa dhacdo kasta oo dulmi uu ku jiro oo dad aanan waxba geysanin lagu dhibaataynayo muslim ahaadaan gaalaha ahaadaan dad aanan dhibaato geysanin lagu dhibaataynayo dhacdada ayada ah islaamka mowqif cad buu ka taagay annaga haddaan muslimiin nahayna waxa waajib nagu ah in aan mowqifkeena caddayno mowqifka mas'aladaas inaan caddayno waa muhiim tan labaad oo ku xigta waxay tahay dadka muslimiin haddaan nahay inaanan qaadin oonan xambaarin naloona aanan ogolaanin in nala ku xambaaro khalad ay dad kala galaan waatuu ilaahay qur-aanka ku leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa mid dembowday waasira ayadaaba dembiile ah ma qaada mid kale dembigeed ma qaado yani qof hadduu dembi galo asagay ku egta looma saarin karo qof kale looma saarin karo annaguna haddaan nahay soomaali dhaqankaas aad buu noogu badnaayo haddii uu dhib dhaco qabaa'ilku hadday isdilaan siduu hadda cabdiraxmaan sheegaya birta la iska hasili jiray sooma nin wadaadoo masaajid ku jira laga yaabaa in dhawaa ree hebelo qorta loo jaro idan marka mas'aladan ah in wixii dhaca oo qof muslim ahoo khaldan uu geysto hadda imise qof baa geysatay waddankan khaladaad ka geysatay oo muslimna aan ahayn ayaan dhaweyd mid baa ilmo laayay inkastoona diin iyo waxba ahayn ugu jirnaa la yidhi ka hore mid kale dad kale meel kale ku dilay ninkii macvale dhihi jiray waatuu bilinka qarxiyey oo arrimo siyaasadeed iyo diineed u qarxiyey waad la socotaan falal badan baa la geystaa adduunka laga geystaa waddankaana laga geystaa si aanan loogu saarin karin ummadaha kale ama kiristanka loogu saarin karin ama yahuudda loogu saarin karin muslimiinta looma saarin karo mana ahan inaan aqbalna in naloo saariyo khaladaadka dadka kale ay galaan taas saa darteed waxaa muhiim ah arrimahan oo kale markay dhacaan in aanan ka walwalin oo aysan nagu noqonin dhibaato nagu noqonin gilti inaan dareenno masalada inaan gilti dareenno sax ma ah sababto anagu ma gelin anagu ma gelin saa darteed in qofkii sida horeyba loo sheegay qofkii dhibaato loo geysto qofkii la caayo diintiisa lagu caayo qofkii la dhibaateeyo gacan loo geysto in uu soo sheego waxaadna ogaataan waddankan aan degannahay xuquuq baan ku leenahay asna xuquuq buu nagu leeyahay walaa shaka fi dalik inta hadda soomaaliya halkan fadhido inteenna badan waxaan dhihi karaa 90% waa laga yaabaa cabdiraxmaan iyo rag la mida inay naga soo horreeyeeno dagaaladii ka hor ay imaadeen waddankii baa burburay waa soo qaxnay choicekeenna aan adduunka meel kaga tagna wuu iska yaraa waan soo qaxnay adduunka meel walbaan ka joognaa meeshii aan joogno oon tagno nabadna aan ku haysanno in si wanaagsan ugu noolaanno islaamnimada iyo wanaaggeedina dadka aan tusno ducaad baan nahay ficilkeennaan ducaad ku nahay qowlkeennaan ducaad ku nahay dhaqankeennaan ducaad ku nahay
xijaabka gabdhuhu ay wataan waa daaciyaad diinta dadka ugu yeerayaan hadafkeennu marka inuu noqdo islaamka iyo wanaagiisa inaan gudbino walidaalika buu nebigu sal alla alay wasallama wuxuu ka doorbiday ciidan lala dagaalamo iyo magaalo la qabsado fiiriya khaybar duulaanka dagaalka khaybar buu ahaa ayuu wuxuu ka doorbiday rasuulka sal alla alay wasallama hal nin ah inuu soo islaamo cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi dadkan ugu yeer diinta laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nicam in ilaahay hal nin kugu hanuuniyo yaa waxay kaaga fiican yahay geela kiisa gadgududan beriga geela loogu jeclaa waxaa kaaga fiican buu yidhi rasulka sal lla alay wasallama hal nin oo gacantaada ku soo hanuuni su-aal markaan is weydiinno yaa annaga naga mid ah oo hal qof soo islaami ilaa hadda ma ku guulaysatay inaad qof shahaadada u qabatid ma ku guulaysatay ma ku guulaysatay imise qof baad shahaadada u qabatay oo islaamnimada aad mataqaanaa soo gelisay nebiguna sala allahu calayh wasalama dadka aad buu oga murugoon jiray islaamnimadooda aad buu oga murugoon jiray inay gaalnimo ku dhintaanna aad buu oga murugoon jiray waxaa ka mid ah adeerkiis abu aalib ayuu rasuulka sal alla alay waslam oo aad u taageeri jiray waad la socotaan abu aalib nebiga aad buu u taageeri jiray gaal buu ahaa muslim ahayn haddana wuxuu dhihi jiray ninkii ku taabta waa nin aniga i taabtay diintaada wax alla waxaad rabta fidi waan kuu gargaarayaa inta aan noolahay laakiin diintiisii buu haystay abu aalib markuu dhimanayay rasuulka sal lla alay waslam wuu ag fariistay markaasuu wuxuu yidhi yaa cam qul laa ilaaha ila allah kalimatun uxaaju laka biha cinda allah adeer laa ilaaha ila allahu dheh waa hal kelimo oon ilaahay agtiisa kuugu doodo oon dhaho ilaahay ow laa ilaaha ila allahu yidhi laba saaxiiboo xunxun oo inkaaru ku dhacday oo saaxiibadiis ahaa waana markay saaxiibada qarka ka tuuraan dadka yaa ag fadhiyo markaase waxay leeyihiin war heedheh ma diintii cabdulmuطalib baad ka tegaysaa nebiguna wuxuu dhahaa qul laa ilaha illa allah iyaguna saasay dhahan ilaa markii dambe uu ku dhintay asagoo dhahaya calaa millati cabdilmuطalib diinta cabdilmuطalib baan haystaa nebiguna aad buu uga murugooday qur'aan baana kusoo degay waxaa kaloo ka mid ah rasuulka sal alla alay waslam inuu u yimid wiil yar oo u adeegi jiray oo yahuudi ahaa oo u adeegi jiray oo xanuunsaday ayaa loo sheegay wiilka waxaa la yidhi waa nafqaad markaasuu u tegey waa qaangaar laakiin waa wiil yar 15 jir meelahaas markaasuu u tegey nebigu sal alla alay wasallama markaasuu wuxuu yidhi qul laa ilaaha ila allah tawxiidka ugu yeeray wiilka aabbihiis buu fiiriyey asoo fasax idan oo kale weydiisanayo markaasuu wuxuu yidhi atic abalqaasim warka abulqaasim oo nebiga sal alla alay wasallama warkiisa maqal ma ujeedaa wiilkii laa ilaaha ila allah uu yidhi tawxiid buu ku dhintay nebigu sal alla alay waslam wuxuu istaagay baa asoo maradiisa jafanaya oo dhahayo alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar ilaahaygii naarta ka badbaadiyey baa mahad iskale waa mas'ale aad u weyn marka dadkan aan waddanka la wadaagno oon shaqada la wadaagno oon guryaha la wadaagno oon iskuulka la wadaagno oon waxbarashada la wadaagno oon tareenka la wadaagno oon meel walba la marayno waa kow inaan nabad kula noolaano kow nabad tan labaad inaan kula noolaano diin iyo cadaalad dhaqan wanaag akhlaaq inaan kula noolaano nebi maxamed sal alla alay wasalam waa la tuuriyeyn jiray ilaa dhiiggiisu uu intuu qubta uu cirbihiisa u gala yaa ku turiyay adiga waa dhifii naadir sooma waa dhifii naadir sooma imisaad islaamka inta u sheegtid ku dhegaysanaysa oo wax kaa maqlaysa wax walba lama colaysto mas'aladaasna waa muhiim mas'alada ku xigta waxay tahay waa inaan isqabannaa waana mas'alada muhiimka ah waqtiga la joogo waa inaan isqabannaa cabdiraxmaan diinta waxbuu ka yaqaanaa wuxuu yidhi in kastoonan wadaad ahayn haddana wuxuu yidhi qof muslim waa runtiisa xadiidku sheegahaya waa xadiid aad u weyn nebiga sal alla alay waslam qofka hadduu khaldan yahay inaad qabatid fiiriya haddaana annagu isqabanin fitnada uu qof ka mid ah muslimiinta uu geysto xaggee ku soo noqonaysaa muslimiinta oo dhan bay ku soo noqonaysaa walidaalika waatuu ilahi subxana wa tacala uu leeyahay
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة iska ilaaliya fidno aanan ku dhicin keliya khaas ahaan ugu dhicin kuwa dulmiga geystay ee adinkeena ka mid ah runtii masaa'isha noocan oo kale markay hadda waddankeena dhib baa ka jira dagaal baa ka socda dad baa kharbudaya dhibaato geysanaya mawjada sida hadda aan halkan looga qaylinayo baa halkaasna waxa ugu dhamaado dad aanan dambi geysanin oo masaakiina afkaarta noocaana waa inaan geesinimo u leenahay جماعات iyo one to one inaan uga hadalno waxaan waa diin iyo daliil in la isqanciyo qofku shubha gali karta wuxuu isdhigi karaa waxaan waa saxsan yihiin inuusan la gabanin ee dadka ahlu cilmiga uu weydiiyo uu dhowr mas'aladan anigu saana u fahamsanahay sheeqow sideed waa sidee xaq oo la isla fariisto oo wixii la isla cadeeyo oo cilmiga la isla fiiriyo mawjada qofkii uu qancaya meeqa qancis laakiin qofka hadduu la aamuso wuxuu noqonayaa cudur hadhow ku qarxuu noqonayaa midda ugu dambaysa waan idinku dheereey raalli ahaada waan jeclaan lahaa in aan ku soo gabagabeeyo hadalkayga waxaa waaye laba qodob in nala ka helo waxaan leenahay community centers kala duwan waxaan leenahay masaajid soomaalidii saan ugu qaybsanayn waddankeennii qaybtii waxun baa naga soo gaaray laakiin cala alaqal ugu yaraan hadda shirkan markaan ka hadlaynay guddigan masaajidkeennay ka timid fikraddu laakiin walaalkan xuseen iyo raggii la midka ahaa markaan hawsha u dirnay waxaan ku nidhi u taga soomaalida masaajidka ISBCC taga xuseen waa kana hadda waa ila fadhiyaay mawjada community centerska taga fikraddani hadday ka timid masjidkeenna ma aha inuu masjidku wato keliya ee dadka iskugu yeera guddi ka sameeya hal la farsameeyo mawjada shir soomaalidu oo dhan ay u midaysan tahay oo la dhahaynin masaajid baa wata ama community fulaan baa wata ama fulaan baa wata aan la dhahaynin hal la qabto qadaayaadkii issueska soomaalida haysto ha looga hadlo laakiin anugu haddaan soomaalina dhibkan haystaa waxay tahay nin ordaya wax wadwado haddaan aragna waxaan leenahay hebel baa wata marka fikradda noocaasa intaan ka gudubno waxna waa wax ku kooban maraakiz iyo meelo gooni ah masalan SDC Cabdiraxmaan baa hawsheeda wada walaalka Cabdiqaadir Yaasiin asdan buu wada mawjada anagu masaajidkan joognaa yani wixii organizationka ku saabsan iyo masaajidkaas ama hay'adda ku saabsan mawjada waa gooni oo hadda ayagiiba hawsha wada wixii dadka ku saabsan guud ahaanna in aan u leenahay awood iyo karti iyo maskax in laga wada shaqeeyo iyo qalbi furnaan al dhaho war waxaana na dhibaya waxaan seen u wada xalinaa in ka baxna barnaamijka la dhaho hebel baa wata iyo heblaaya wadata muhiim waay mas'aladaas aad iyo aad bay muhiim u tahay mas'alada ugu dambaysa ku soo gabagabeynaya waxaa waaye wax kasta oo dhaca aan ilaahay u cararno wax walba oo dhaca aan ilaahay u cararno sababtoo tahay soomaalida waxay tiraahdaa qayla soo yeertay oo masaajidka ka soo yeertay qayla soo yeertay war xagee ka yeertay masaajidkiiba ka soo yeertayba hadda waxaa waaye qayla yeerto xagee ka yeertay muslimkiiba ka yeertay marka waxaa dhici karta dadka qaarkood inay maanta ku bixiso muslimkii xataa inuu shakiyo oo u dhaho ilmahana dee inta waddankan waa la is wada yaqaanaa iskuullaa la dhigtaa jaamacadaha la aadaa intaasoo fikrad baa socota islaamkaaba waxaan noo keenayba dadka qaar inay ku fakeraan baa dhici karta qaar waxaa dhici karta intay baqaaniba diinta ka cararaan laakiin waxaan idin leeyahay xalku wuxuu ku jiraa mar kasta in diinta loo soo noqdo diinta in loo soo noqdo marka ana waxaan dhihi lahaa markay arrimahan oo kale yimaadaan inaan masaajidda ku xiranno inaan diinta ku xiranno in aan culummada ku xiranno mas'aladaana aad baan u adkeynaya culummada ah nin caalim ah oo diinta ku degtay oo faqiih ah oo diinta yaqaana waaqiciisa ku noolna og kuma fatwoonaayo kugumana taageeraayo in dad muslimiin ama aan muslim ahayn oo waxba aan galabsan in la dhibaateeyo marka insha allah waxaan dhihi lahaa waan soo gabagabeynayaa waxaan dhihi lahaa siduu ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi fafiruu ila allah ilaahay subxana wa tacala xaggiisa aan u cararno jazakum allah khayr wasalla ala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasallam sheekh yuusuf waa nagu soo noqon doontaa ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha halkan isugu yimid ee reer Boston. gaar ahaan waxaan salaamayaa culimadii soo abaabushay shirkan in la isugu yimaado. waxaan filayaa in ajandihii aan ka hadlaynay ama qodobkii aan ka hadlaynay inuu ahaa sidee la iskaga ilaalin karaa qolyahan xag jira ama dhacdooyinka sidan oo kale imika Boston ka dhacay oo kale sidee looga hortagi karaa inagu Soomaali ahaan. waxay la tahay in kastoon faahfaahin badan laga bixin haddana Sheekh Yuusuf iyo Cabdiraxmaanba waxbay ka sheegeen. anigu waxay iga su'aalaa arrintani waa wacyigelin. haddaba mar Cabdiraxmaan oo ka maqan yahay hadda meesha wuxuu sheegay in maalintii ay arrintani dhacdayba lala soo xidhiidhay oo dawladda la shaqeeyo. waxaan filayaa kolley culimmada masaajidkana in dee lala soo xidhiidhayo. haddaba annaga na wacyigelisee qolyahan dee madaxda ama FBI ha ahaato ama biliis ha ahaado bulsho weyntan aan ku dhex noolahay Sheekh Yuusuf uu tilmaamay inaan nabad ku wada noolaano oo hadday tareen tahay iyo haddii ay iskuul tahay iyo hadday shaqo tahay iyo dee aanu maalin walba la kulanno. sidee shacabkooga loo wacyigelin karaa waa iga su'aal. bismillaah. walaalkeen cali wuxuu weydiinayaa jazaaka allahu khayran. su-aashaas waa su-aal wajiih ah oo wanaagsan. su-aashuna waxaan jeclahay inaan ku celiyo waxa waaye sidee annagu iswacyigelinay dadkan aan muslimka ahayn ee maraykanka ah sideen u wacyigelinaa mowqifkeenna. waana su-aasha waana arrinta camalka ugu adag waaye runtii waa camalka ugu adag. waxaa lagu wacyigelin karaa dhaqan baa lagu wacyigelin karaa. waxa ugu fiican oo lagu wacyigelin karo waa dhaqan. haddii dadku kugu yaqaanaan dhaqan wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, naxariis, qof ballan leh, qof akhlaaq leh oo wanaagsan haddii lagugu yaqaano dadka muslimiinta hadday imijkaas bixiyaan qofkaad dariska la tahay ama aad shaqada ka wada shaqaysaan baa wuxuu dhahayaa hebel ma aha. muslimku waa dad fiican anaa aqaana ma aha saas. arrin ka dhacday mayn inay ahayd baan filayaa. wuxuu yidhi haweeney ayaa baabuur nin ay daris ahaayeen baa baabuur towin yaa laga towgaraynaya. wuu yimid ninkii towgaa yimid wuxuu ku xirtay hadda ma xasuusta ninkii ii sheegay laakiin qasida baan xasuustaa. wuxuu ku xirtay bahasha uu ku xiran jiray ku xirtay inuu qaato baabuurka. waa la iskugu soo baxay. islaantii way soo baxday waxay tiri wax lacaga ma hayo kaash ma hayo. dad kale waa soo baxeen niyow aan waa ku keeni doonaa ama ii dhig baabuurka ma jirto yidhi. ilaa aad dhigto lacagtaas $60 ah lagama yaabo in aad baabuurkaas aan dhigo waan qaadanaya. baabuurkii yarkii ninkii Soomaaliga ahaa gurigu galay 60kii buu farta ka saaray. islaantiina baabuurkeeda waa loo dhiciyey. maalinta dambe shir qolyo Soomaalida ka cabanayay oo shir Portland lagu qabtay daris iyo city iyo maqaan meel ahayd oo qofkii hadlaba uu Soomaali wax ka sheegayay bay naagta intay istaagtay iyo muslimka waxay tiri dadkaasi waa dad fiican difaac bay ugu dhaqaaqday. asxaankaas loo sameeyay darteed. marka dhaqanka islaamku waa saas. anigu waxaan u arkaa waxa ugu fiican ee dadkani aan ku wacyigelin karno waa dhaqan wanaagsan, waa dacwo iyo dulqaad iyo dulqaad. haddii qofkii kelimad ku dhahaba aad teeda kale ugu jawaabtid ma tusinaysid dhaqanka islaamka ma tusinaysid. marka in la dulqaato dadka wax loo sheego la wacyigeliyo dhaqan wanaagsan lagu dhaqmo
aanan la qaadaninna qofna laga qaadanin inuu ku shaabadeeyo marka anuu intaasaan is dhihi karaa wallahu aclam in lagu gaarsiin karo jazaaka allah khayr in waxyaabihii badnaa ee sheekhu ka hadlay qof miyaa jira su-aal ka qaba ama raba inuu ka hadlo qof su-aal qaba miyaa jira waxyaabihii badnaa ee sheekhu ka hadlay oo raba inuu ka hadlo waaya sheekh yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsantaa sheekh asalaamu calaykum okay sheekh jazaak allahu khayr su-aashii waa ka fikiraya qaabkaan u dhihi lahaa baan diyaarinaya marka ma u jeedin sheekh su-aasheeda waxa waaye nimankan xaag jirka ah oo haddeer maarata laga yaabaa labadii dhalinyaro haddeer meeshaan ka dambeysay lagu eedeeyey inay nimankaas ay ku lug lahaayeen oo saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah oo fikirkan ay ku dhaliyeen haddii lacalla ay jiraan dad noocaas ah ay magaaladan ku nool oo aad la kulantid ama ayagu ficilkii ama qaabkii leh ama dadkii ku dhex wada aad kula kulantid haddaad ilaan cabdiraxmaan wadaayi uu asagii yidhi waa dhaaranoo citizen baa wada nahay oo runta inaan sheegno marka dadkaasoo kale haddii booliiska lagu wargeliyo la dhaho nimankan waan ka shakinay ee waxaasaan qabnaaye bal ka waran su-aasha waa su-aal adag soo ma haddii labaan u kala qaadayna hadda ka horna waxaan filayaa mar inaan ka hadalnay labaan loo kala qaadayaa wallahu aclam qof muslima ama qof aan muslim lahayn in la dhibo oo dembi wuxuusan dembi ku geysanin ama aan lagu hubin lagu dhibo ma bannaano oo dhib loo geysto hadal aad ka sheegtay in lagu dhibaateeyana asoo dembi aan lahayn waa lagu qabsanaya walaa shaka fi dalik laakiin haddaad aragtid qof aad ku qanacdo adiladeedu kuu muuqato in dhibkii maalin kaloo kale uu geysanayo la geystay oo kale uu geysanayo qofka noocaas ah waxaad fiirinaysaa waad u jeeddaa yacni dhibka uu geysanayaa ka badan naftiisana u geysanayo dad kalena u geysanayo marka waa meesha la fiiriyo la yidhaahdo dafcu akbaru lmafsadatayn iyo mas'alatu akhafi dararayn laba dhib hadday jiraan ninkan in la xiro iyo inuu dad dhibaateeyo labadaasaa maanta taagan inuu ummaddan la dego dad dhibaateeyo asagina isdilo ama mataqaanaa uu dhib u geysto asagina mataqaanaa uu dhib gaaro dadkana uu dhib gaarsiiyo iyo inay asaga ku ekaato la xiro keeron waxaan ka hadlayaa wax cad hadday jiraan wax hadday jiraan marka mas'alada noocaas ah shareecada islaamka waxaa waaye waxaa la fiirinayaa dhibka la fiirinayaa ama mararka qaarkood waxyaabaha witch huntiga la sameeyo witch hunt waa taqaanaa waddanka soo maha witch hunt waxaa waaye qofka oo inta la iska ceersado marka qofka muslimka ma aha inuu witch hunt ka qayb qaato witch hunt inuu ka qayb qaato sax ma aha laakiin wixii dhib ah oo xaqiiqi ah oo jira u jeedo qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah in uu qofkaas gacanta ka qabto inuu gacanta ka qabto masalan waxaa ka fiican qofka haddaad la kulanto qof fikraddaas qaba waxaana aaminsan inuu dhib geystana mataqaanaa dadka dhibka geysanaya asaga isku fikrad yihiin qofkaasoo kale waxaa fiican in aad la dootid jid u furtid la hadashid culammada u geysid shubhaadka laga saaro la qanciyo tusaale ahaan maraad xuseen igan raalliho haddaan jawaabta ku dheeraado waxa waaye waa arrin muhiim ah waayo tusaale ahaan saad la wada socotaan nimanka khawaarijta la yidhaahdo nebigu sal alla alay waslama uu sheegay xilliga cali bin abi taalibna xooggoodii soo baxay cali wuu la hadlo wuu ka qustay wuu ka daalay adiga ma taqaanid qof qancin kara ilaahay baa og cali wuu ka daalay rag kaloo saxaabadana way ka daaleen cabdullaahi ibnu cabbaas
ayaa wuxuu codsaday cali ka codsaday inuu la hadlo bal nimanka inuu qanciyo cabdullaahi waad maqasheen ma kuma celin karo waa sheeko aad u dheer dood dheer buu la galay cabdullahi ibn cabbaas doodii cabdullaahi la galay waxaa ka dhashay 4,000 oo nin inay soo noqoto 4,000 oo nin 12,000 bay ahayn baa la yidhi 4,000 baa ka soo noqotay hadda dhibkan hadda waddankeennuu ka jiraa caalam islaami meelo badan buu ka jiraa halkan waa hadda dhibka ka dhacay waa kan aslan fikirka noocana waa fikir caqiim ah laa yarxam ma naxariisto muslimna uma naxariisto gaalna uma naxariisto laa yarxam muslimna gaal midna uma naxariisto markay waxa ugu fiican oo lagu joojiyo waa fikir iyo in lala hadlo iyo in la qanciyo qofka asaga ah haddii marka qofka la arko inuusan intaa ku waabanayn oo ficil gacanta kula jiro waxaa la fiirinayaa haddii uu dhibkaa u geysanayo intaa uu la egyahay in gacanta laga qabto waaye wallahu aclam bismi illahi raxmaan ani dhinaca waxaan ku biirayaa dadweynaha markaa su-aasheeda waxay tahay sheekh yuusuf miyayna arrintan ay labada wiil sameeyeen aysan noqon karin failure ama guuldarro weyn oo run ahaanta dadka ducaadda ah diinta islaam ku shaqo leh ee la raba inay ducaad dadka gaarsiiyaan failure iyaga ka timaysa sidiiba wadaadada ducaadda ah sababtaa u leeyahay arrintaasi waxa weeyaan number 1 labadaa wiil waddankaa la keenay wax diina lama barin inkastoo waalidkood uu joogay haddana markii ay noloshii maraykanka iyo habkii ama nololeedkii maraykanka ka hor yimidna islaamkii waxay u arkeen waxa tv-ga laga sheegayo ee ah isqarxinta marka arrintaa miyaan lagu eedeyn karin wadaadada insha allah ma lagu eedeyn karaa dadka culimmada ah qaladaadka ay geysanayaan dhacay ma lagu eedeyn karaa horta khaladkan dhibkan arrintan dhacday soomaalidu waxay tidhahdaa geeri waxay ku roon tahay geeljire iyo nimadaan garanayn saasay dhahan hadda waa niman ruusha iyo jejniyaan sida la sheegay laakiin soomaali buu noqon karaa xaqiiqatan runta isku sheegno nin soomaali buu noqon karaa hadduu nin soomaali ahaan lahaa laba soomaali hadday ahaan lahayn ka warramo ilaahay baa idinku dhaarshay laba soomaali hadday ahaan lahaayeen ka warramo waad qiyaasi kartaan gebagabaa dhici lahayd soo ma gebagabaa dhici lahayd soo maaha cabdiraxmaan hadda dhahaya waxaan la shaqeeyaa dawladda asagaa laga bilaabi lahaa mujeeda yaa aniga hadda masaajidka jooga wadaadka waxaa laga yaabaa in la iigu dibdhigaa dhici karto ilaahay baa og macnaha waxaan ka wadaa colkii soomaalidu waxay dhahan laga sheego galbeed gondaaga ka day waxa kani waxay ka dhici karaan mujtamac kasta waxay ka dhici karaan dad kasta diin kasta ay ka dhici karaan sida aanan loogu eedaynaynin diinta islaamka guud ahaan baanan loogu eedayn karin culummada sababtan waan idiin sheegayaa adduunka maanta waad la socotaan adduunka maanta culummo dad wax ka dhegaysta ma badna laakiin internetka dad wax ka dhagaystaa badan soo ma soo ma marka bahalkaa internetka la dhaho oo been iyo run iyo wax fiican iyo wax xun iyo balaayo dhan ku jiraan baa waxa loogu yahay marti loogu yahay oo dadku ay mataqaanaayey ay wax ka qaataan levelkii dacwada sidii la rabay miyay ahayd oo dadka si fiican miyaa diinta loo gaarsiiyey waa dhici karta arrintaas inuu gaabis ka jiro laakiin qof sheekh ama culummo ah mas-uuliyaddeeda ma qaadi karo mujtamaca muslimka guud ahaan muu qaadaya yes ha waxaa kaloon jeclaan lahaa inaan laba qodob oo isla taasa aan ku daro waa mid waxa waaye arrintan waxaa sababteeda u weyn yeelan kara waalidkaa yeelan kara sababta u weyn waalidkaa yeelan kara sababta taa nash'ada ilmaha marka inta diin lagu tarbiyeeyo waxna la baro si fiican wax loo baro saxda iyo qaladka la kala baro cidduu diinta ka qaadan lahaa la baro waxaa dhici karto way u badan tahay inuusan meel halaysa ku dhicin meel halaysa inuu ku dhicin iyo
mujtamaca muslimka guud ahaan in la iswacyigeliyo waa la isku wada leeyahay laakiin lama dhihi karo koox hebel ayaa sabab u ah ama culimmada sabab u ah ama qoladaas sabab ama qoladaas failure gareysay lama dhihi karo gaabis waa jira annaka dhan wallahu a'lam waayahay waa waqtiga waa ka dhammaaday sheekha haddana waxaan u yeerayaa deeqa jibriil deeqa hadday joogto بسم الله الرحمن الرحيم رالي إيجا هذا دقيقة ذي هرميه قبل ده إسبيتال كأنه قعن كم رقعتي 4 hours على جوجي سو أكتهم المهيجا أو وجود جيريود الله نحرسته أدير أحمد داي وحوهانين أنيجا إيران وإذا قالين جري إلهي هذا قالي ما أنت عبت هذا أدونه أستر عبتي سآخر الله أستره كرباء أدونه إجفيد إلهي كرباء آخرها كفيد قبري الله النوريو miisaankiisa allah xasanaadka ku daro annagana halkaasaan u soconnaa sooner or later maalinteena maalin khayr qabta allah nooga dhigo ilaahay ha noo fududeeyo sakaraatul mawt ilaahay naguma dhibo cadaabatul qabri ilaahay nama tuso jannatul firdawsna allah naga waraabiyo ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waxaan halkaan mahad ugu celinayaa intii kulankan soo bisay iyo intii isuka keentay iyo inta timid iyo ilaahay noo kasay inaan kulankan wada yeelano waa u baahneen inaan isla wada hadalno inta badan Soomaalidu waa kala hadlaan laakiin isla ma hadlaan gaalada waxay dhahdaa adduunkan hadii if we talk to each other it would be a better world and instead of talking against each other marka aad aan ugu faraxsanahay kulankan kulamo badan oo ka fiican Allah keeno and let me go back to the agenda oo Somali Red Boston iyo wixii dhacay as a community waxay ahayd inaan isku nimaano oo aan ka hadalno media aan u yeerno oo aan dhahno annaga Somali community hadaan nahay the largest Muslim black community in Boston waa ka xunnahay wixii dhacay waayo masaajidka weyn inkastuu masaajidkeena yahay way qabteen waxaa loo arkaa haddaa state level tahay masaajidka weyn inuu qabtay so Soomaalida 20 sano ka hor wadankan nimid first stage waxaan ahayn dependency ama ceer qaado ama gurigii baro second stage waxaan nahay preparation iskoola aadna dalkii aan baranayna nidaamkiisa third stage participation hadda third stage aan marayna ma aha inaan community leaders intaan u tagno waraaqdan noo fasilin la dhaha ma aha waa inaan anaga ka mid noqonaa liidarada policy-ga suubinaya welfare-ka liidarada policy-ga suubinaya city hall and the governor and I don't want to take the credit Soomaalida badana waxa waaye dad badana wax isla qabanaya hal nin aan raba inuu muuqdo I'm not that type of person always waa ka dagaalama we're not we are we hadda si u fiiriyana dumarkeena naguma jirto raggii ku jirtaa marka Allah ka saaro ayagana annagana ilaahay nooma keeno with that said I don't know Mash Jogo I love Mash he's one of my good friend political activist isla nahay aniga asaga laakiin waxa loo baahan yahay dadkan cararaay horta inaan kala tafaaruqayno Soomaaliya is one 25 qof Soomaaliya xiran 25 taas qof hooyo single mother kaliya ma laha aaba single father kaliya ma laha aabi hooyo ma laha kulligeena hooyo ah una aaba ah una community ah hadda aragtiin criminal record-ka laguma qoray qabiil hebel waxa lagu qoraa Somali born ana arkay criminal cunug la xiray record-kiisa Somali born ugu qoran where is the community marka it's time aan isku nimaan aan address gareyno ilmaha fiican leeyana ku mashquulin kuwa xunna aan ku mashquulno kuwaasa investment nooga baahan not the one or good the one or good ilaahay noo siyaadiyo laakiin kan good ka aan ahayn maxaa la dhihi jiray mahmaahda kabad bisil kor isma dhaamta ma ahayd so hadda waxa waay dumarka la hadlaa cunuga naga xiran dib la'aanaan dhalnay it's our problem waxaa jirta organization oo madowga la dhaho Mothers for Justice peace u shaqeeyaan ilmahooda laga xiray ilmahooda laga dilay shalay problemkaas wuxuu ahaa them today is ours dadkaas oo kale markay march gareynaa waa inaan march gareynaa waa inaan painkooda la share gareynaa shalay waxay ahayd waxba kuma darsanayna laakiin today our own children maxaan u qabanay haddaan caaw dhiman waa la weydiinaa
ragga iyo dumarka intay soo istaageen dhaheen we are community leader, what have they done? The other day xadiisaan dhegaysanayay ninaa wuxuu ka hadlayay the 7 people oo ilaahay shaydkiisa galaya maalinta qoraxda ay soo dhowaan doonto. One of them waa leaderka adjust ah. Do we have a leader adjust ah? That's su'aasha dadweynaha aan rabo inaan u sheego. Haddaanan qabin seen u suubsanaa one. Because all these leaders ama establish ha ahaadaan, xafiisyo waaweyn ha qabaan, ama anigoo kale some people call me small ha iska ahaadaan, effective miya? Maxay kulligeen idinka idin shaqeynaa? You guys, we work for you. Haddaan idinka idinku qanacsaneen, tell us. We all family. Haddaan idinka noo sheegin, yaa noo sheegay. Naagtaan signature-keeda aan u gureyno, we have to inaan support gareyno, ceeb ma aha, laakiin Somali community maxay u qabatay? 15 wiil naga xiran maxay u qabatay? Shalay waxay ahayd power-keena ma ogeyn, but today we have a power. Markii go'aan la gaaray, I don't know inaan la socotin city ama state. Your issue have to be at the table. Waa in qof adiga kuu hadlay uu tablekaas fadhiyaa. Hadduu tablekaas fadhinin, you don't exist. Inaan nooshahay, inaan dhimata lama oga. Okay, Somali elective maba qabnaba, ama African elective, ama Muslim elective. Okay, dadkaana u codeynayno. Do they have the same issue oo issue-geena ah? Markii qof uu kursiga kuu fadhinin oo kuu doodeynin, waa in menu-gaaga have to be on the table. Waa inaad dhihi kartaa annaga Soomaali haddaan nahay waxaan u baahannahay our own institution. Can you support us? Okay, here is the menu. Markay isku imaadaan waxay leeyihiin Somalis, they are maxaa la dhahaa powerful community, waa vote gareeyaan. Your issue is at the table. Laakiin adiga ma joogtid, waraaqdaada is at the table. Maanta waxaan u dagaalameynaa, aan u shaqeynaynaa oo aniga iyo meesha aan u nahay activist in Somali. Inta laga gaarayo qof annaga naga mid ah inaan doorano. In our menu have to be at the table. So waxaan idinku encourage gareynaa ani waraaqda la wareejinayo ma saxiixin because Deeqa Jibriil is worth $1 million. Saxiixayga ma iska bixiin. Sababta wax kasta kaaga imaan kara. Hadda naagtaan, she's a good woman, good friend of Mash, and I don't know her personal. Laakiin saxiixiina, I encourage you and I advise you dhedhel ha u bixinina. Your name is priceless. Ha ku dhejinina price. Waxaan kaloo idiin sheegaa haddaan Soomaali nahay, salaad kasta aan dukano, aan ka ducaysano tafaraaruq. Dad badanoo waxaa jira, they have different identity. Sidii aan waddankaan ku nimid, ana hadda Deeqa Jibriil aan ku imid, Deeqa Jibriilkayga le run because visa aan ku imid. Laga yaabo Deeqa Jibriil in magacayga lagu dhalo uu yahay, Xaliimana aan ku socdo. Marka taas magacaan ku nimid loo ahaa, laakiin dad waxaa jira naga mid ah oo qaarkood they wear a different hat. I wish inaan hat qabil amaanta waa idin tusi lahaa. Today waxa waaye Arab waaye. Tomorrow they Black American. The next day they Somali. Waxaan idinku encourage gareynaa one identity. Elizabeth Warren waxaan u ahaa field organizer. The first Somali ee maxaa la dhahaa ee shaqo siiso. Niman badan oo Soomaali ah oo halkaan fadhiyo oo aan ka rajaynaa inay cafiyaan, ana waa cafiye. Aan waxaan isku dirirna, we are not Black American. We are Somali. Our own data and subsanna Somali nahay. No. Mid nin uu igu yeerba ninka ay yimid, why you're not black? I'm not black, I'm Somali. Igu qosle. Because Somali power aan raba inaan at the table saaro. Black American signature markaa u aruurisid. Deeqa kaliya yaqaana, kulligeen idin ma yaqaano. So Deeqa self interestigeeda miisku saara because Deeqa kaliya arkay. Laakiin hadduu arko all of us, he's going to keep in mind all of us issue-geena. Yaa guri laga saaro, yaa who's facing eviction? Yaa xijaabka lagu dulmiyay? Haddii xijaabka lagugu dulmiyo, do you know your rights? Ilaan Cabdiraxmaan iyo Deeqa iyo Maryan Gaas iyo Cabdulqaadir iyo Saciid iyo Cali iyo Jaamac iyo Cabdi ma ku difaac gareynayaan. Self defense u baahan tahay. Do you know that? You know markii lagu attack gareeyada waxba ka ogeyn, waxa qabanaysa, do you know? Maya, waa in lagu baraa. Marka waxa idin ka codsanaa community yaashan idin represent gareeya, accountability u suubiya. Waa laga soo gudbay waagi maxaa la dhahaa waraaqdan iyo turjin. Maanta waraaqda waa qori kartiin, waana akhrin karnaa. We want accountability. qaladna ha ii fahmina, aniga qof gooniya adres gareenaya ma leh. All I care is Somali unity. Because dhibaatada inta badan dumarkeena haysataa. So dumarkeena we have to unite. Seen wax u qabsan karnaa,
waa og tahay haddii khayr ay tahay haddii masaajid tahay wax walba dumarka raggi dumarka ugu horeeyo marka dumarkeen waa inaan isku duubnaana waa inoo fiican tahay Somali institution inaan yeelano saan ku yeelan lahayn waa in la suubiyaa waxaan kaloo idin soo wadaa waxaa jira Democratic Party مثلا qof hadduu cararayo Democratic Party lacag ay siiyaan let's say Mash wants to run ama anaa rabo inaan cararo dadka lacag ay siiyaan waxay qabtaan raba inaan idin baro annaga Somali community dadana meel walba Soomaalida joogan xamara joogan Boston joogan Australia joogan waxa socota dictatorship wax la dhaho aniga leader ah you go behind my back in star uu ku dhila war walaalkeeyo you are my brother's keeper my sister you are my sister keeper wuxuu ku leeyahay maya aniga ma oran arintaas aniga arintayda socota gadaasha ina socotid waay wuxuu aaminsaneen gadaasha iyo hortaada ilaahay rasiqaaga haayo gaalada aan u tagayno annaga haddii aan wax idinku soo qaadano magaciina dartiina aan wax idin qabanin don't worry about dad badanaa waxay dhahaan you know ninkan wax ma ii qabanin naagtaa wax ma ii qabanin gabadhaan lama aqoonsano ninkii wax qabanaayo al samiica maqlaayo al basiira u jeedo marka walaalayaal waxaa idinka codsanaa ani trainingan haddaa rabtiin it's open optional barta kaakas wax la dhahaa jira 8 qof hal mar wada cadarta 8daas inay isu soo reereebaan waay xaafad kasta waxay leedahay gudoomiye leedahay hadda dalageeda la ii doortay convention state convention iyo waxaan ka qayb galaa national convention waxaa kaloo la ii doortay oo mayorkii ii siiyey guddi Soomaali oo la dhaho oversight committee Mondaydan soo socota waxaan ku shireynaa dad lay library imaada guddigaas go'aan u gaara Roxbury iyo investmentigooda tropical food kan ka adeegano Madison Park agateen kor waxay rabaan inay ka dhigaan low income tropical kan ay sii weyneeyaan marka guddiga go'aan u gaara you know nin baa raba inuu hotel dhiso how many black are hire gareene sababtoo ah mar raba Roxbury inay noqoto South End waxay hadda tahay dadka Roxbury jooga mal raba in laga saaro Walgreen Humberland deganahay Walgreen the other day shuda ka dhacay xaafad walba waxay leedahay crime watch ka aan ka qayb galno aan soo baxno we are American we're no longer Somali passportaan wadanay don't just use to travel codkaaga coday muhiim ay leedahay maanta haddaanan annaga noqonin think about the generation ilmahan yar yar oo meelaha joogo they need to be the next Congress they need to be Deval Patrick they need to be Obama haddana annaga plan garaynin the seats yaa u abuuray seatkaas oo yaa war ugu shubay nobody marka waxaan idin leeyahay let's think about Somali unity waa idin barya meel walba joogtiin ninka rabtiin u codeey Republican noqdo qofka rabtiin noqdo laakiin codeeya hadda waxaan dadka iga horeeyo hadleen waxay dheen waxaan state-ka iyo wax walba la shaqeynaa aniga hadda Elizabeth Warren waxaan fursad u helay Somali language in lagu daro democratic website kooda 56% of Somalis vote 56% of Somalis waa hawsha ani keligay ma qabanin waxaa ila qabtay Maryan gabadheeda waxaa ila qabtay wiil halkaas fadhiyo gabar kale it's collective Somali waxaana rabnay Soomaalida inay naga muuqato waana inay naga muuqataa 2014 Mash if you don't run I'm running my name is Deqa and I approve this message deeq xagee carartay in armiye deeq nagala hadashay qof su'aalka qawmiya jira deeq armiye ka hadashay qof wax ka oranaya wax ku daraya wax ka dhimaya miya jira bas waa deeq aad iyo aad ay maasantay haddana waxaan rabaa inaan mikrofon ku soo dhaweeyo Cabdiqaadir Hindi oo raba inuu arin yar inagala hadlo isagu بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا ولا ليالو كما أنا نجرين دتكاس أركتدا كبيرنا يا ماشى بان كم إذا هاي وحن ربي دور عطسينا هل كان كسر جدي أو موضوع كوساب سن شيخ يوسف هل كان وكم مقيه أو شيخ مسجد كأه وحن جعلان لها إن مرقاتي كدي ودت كودن دور جربان ثلاثي إنه هذا ما أنت أسجن فدي هذا فعلا بقدال بوادي رنتي إلهي خير الشيخ يوسف إلهي نوح حفظيه يا مساجد كذا أركتنا طبعا
guddigii masjidka way fadhiyaan oo way joogaan iyagaan insha allah ka wada hadli doona muhiimadda waxa weeye waxa aan rabno inaan badbaadinno waxa weeyaan waa nafsadeennii Soomaali ahaan Somali community in inaga wiil yar ama qof kale ama qof islaamnimo sheeganayo inuusan magaceena afduubin marka waxaan rabnaa inaan isbari yeelno oo aan muujinno waxa aan nahay codsiga koowaad waxa weeye oo masjidka aan u jeedinayaa walaalayaalow masjidka wuxuu ku magacaaban yahay masjidka Soomaalida waa masjid dad muslimiin ay ku wada tukadaan haddana as a community inaga iska leh waxaan jeclaan lahaa ka Cabdulqaadir ahaan in masjidka sida hadda la yiri oo kale sidee baad dadkan aan ku dhex noolnahay aan u tusi karnaa akhlaaq fiican iyo naxariis markaan akhlaaq fiican iyo naxariis aan tusno wax badan oo soo socday oo dhib ah baa naga harayo sida hadda Sheekh Yuusuf uu kaga sheekeynayay gabadhii ninka Soomaaliga lacagta ka baxshay waxay ahayd waa qudwo aad u wanaagsan laakiin anigu waxa aan raadinayo waa maxay waa muuqaal guud siriga ay dareemi karaan maxaa kamid ah waxaa kamid ah masjidka inuu abaabulo kaba soo qaad markuu barafka jiro oo kale dhalinyaro badan baa jiro siiba ragga baa awoodi kara in ay shaatiyo soo qaataan funaanado masjidka magaciisa ku qoran yahay Somali community ku qoran yahay inaan dadka barafka ka qaadno dadka wax dhibay aan jid ka qaadno markaas maxay noqonaysaa naagtii sheegtay wiilka Soomaaliyeed abaalku u guday wuxuu u sameeyay baa dadkaas neighborhood ka dhan marqaatibi ka furayaan waxay leeyihiin masjidkan oo Soomaalidu ay leeyihiin waxa weeye waa masjid barafka xaaqa nin barafka gurigaaga hortiisa ka xaaqay ama dad waxa jirto waa yeel ah hortiisa ka xaaqay inuu maanta ku dhabaatay ma suurtagal baa waa may ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu nafarayaa inaan dhagaxa iyo irbadda iyo sakiinta aan jidka qaadno ajir baa laga helaya laakiin anigu waxa aan rabo waa maxay dalkan waxa weeye intaan adiga lagu fasirin intuusan ku dhihin hebel waxa tahay saas iyo saas iyo saas ma marka hore adiga isfasir adiga is sheeg waxaasaan ahay dheh Somali community baan ahay marka waxaan jeclaan lahaa in la aruuriyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee masaajid ku xiran in dhalinyarada Soomaaliyeed ama masaajidka ku xirnaa mise ku xirnaanin funaanadahaas loo galiyo barafka ay ka qaadaan meelaha baarkinada qashinka yaala laga qaado oo hal mar yaani image fiican bay sameynaysaa mid waa taas codsigaas waxaan u maleynayaa masjidka inuu iga aqbali doono insha Allah waxay iga tahay uun codsi aan ku biirinayo waana wax runtii abuuri kara dareen degdeg ah inagana faa'iido inoo tahay midda labaad waxa weeye mararka qaarkood mawduuca inaan ka baxo ma rabo mararka qaarkood waxaa arkaysaa nin Soomaaliyeed oo al-shabaab taageerayo muxuu ku taageerayaa wuxuu leeyahay waa ahlu diin bay ku xukumaan shariicada saas ku xukumaan al-shabaab buu taageerayaa in Somali community in Boston arrintaas waa mamnuuc waa khalad okay ninkaas ma haddii aan dhahayn war fikraddu wuu iska leeyahay ninkaas aaraadiisu ka hadlay no aaraadiisa ma ka hadlin wuxuu dhabarka ka toogtay Somali community wuxuu ninkaas dhabarka ka toogtay ninkii al-shabaab ku taageera af iyo adin wuxuu dhabarka ka toogtay Somali community Boston wuxuu encourage gareeyay oo outreach uu u sameeyay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo magaaladan degan ay noqdaan al-shabaab yes marka waxa mamnuuc ah qof Soomaali sheeganayo oo Boston degan inuu taageero aragti ku taageero al-shabaab as an organization wa inuu qofka aan u tusnaa organization bini'aadanimada ka soo horjeeda inuu yahay organization mamnuuc yahay inuu yahay qofkii xataa taageerana inuu nafsadiisana dhibaato ay u imanayso community-gana dhibaato u keenayo waxaan ka hadlay waa reality-ga waxaan rabnaa boogta walaalayaalow inaan u dhayno si deeply ah ma ahan inaan korka
ka daboolno al-shabaab ma la taageeri karo waa mamnuuc lama ogolo waa organisation aan la ogoleen haddaba waa qof walba messagekaas waa inuu gaarsiiya Somali community inta ka maqan halkan waa mamnuuc al-shabaab marka fiiri ninkii ugu dambeeyay ay dilaan 40 sano ayuu dugsi qur'aan masaajid imaamka ahaa xudur waxa ka horeeya sheekh Abdul Qaadir waxa ka horeeya sheekhi Boosaaso lagu dilay waxa ka horeeya ardaydii Soomaaliyeed ee jaamacadda ku qalin jibinay magaalada Muqdisho waxa ka ma magaalo aysan Soomaaliya dad kuleyn ma lahan waliba dadka culimada ah dadka wax tarta leh dadka 8 sano ay wax laynayeen wax ka soo socdo oo ka nooska sacad ma jirto marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa al-shabaab yaa la taageerin qofkii arka qof al-shabaab taageeray hadhoho wallahi waa ku sheegaya wallahi haddaadan ka waantoobin waa ku sheegaya sababtoo organisation kaas waa mamnuuc intaas ayaan ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum cabdulqaadir hindi aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waxay la tahay speakerkii aan hadda u yeedhi lahaa in uu bannaanka u yaro baxay adiga dhegaysaa miyaa faasilad mise muxuu ahaa gadaal baad iga qortay nagada okay ma kaftamaya okay السلام عليكم انت انا هذا الكيك بلعبين waxaan doonayaa inaan tala bixiyo waxa ku wan haboon Soomaalida markay meel iskugu imanayso haddii aynan dhageysanin inayna iman meesha madasha hadalku ka socdo inayna iman intii aan fadhiyay meesha qaar baa fadhiyay wayna sheekeynayeen halkanna waxay taagnaa dad la hadlayay oo wax u sheegayay marka horta intiina halkan fadhiday ma waad mahadsantihiin aad baad mahadsantihiin ilaa sidii loo soo galay ilaa imika dhagaysanaysa aad baad mahadsantihiin aragtida dadka badana halkan ka hadlay qabaan anigu ma qabo maanta dhan waxaan ka hadlaynay sidii Soomaalidu isku toosin lahayd Soomaalidu waxba ma sameyn Soomaalidu wax alle iyo waxay sameeyeen haba yaraatee oo xumaana ma jirto dad Mareykan ma dhibin suuqa ma yaacin oo cid ma dhibin wax alle iyo waxay Soomaalidu sameeyeen wanaag mooyaane ma jirto kuwa loo baahan yahay inay istoosiyaan maaha Soomaalida Xuseeno waxa weeye inuu Mareykanku istoosiyo Mareykanku inuu istoosiyo oo ka daayo haddii uu qof muslina qof muxuu ahaa ama Chechnya ama Russia ama meel kale ama China ka yimi hadduu dambi sameeyo sheekada ay leeyihiin muslimka sameeyay ka kacay waa khalad waa inaan u sheegnaa Mareykanka dhageysta qofkii sameeyay isaga sameeyay muslim shaqa kuma laha waxan haddii aanad adigu u sheegin iyo u sheegaya marka Mareykanka waxyaabo badan oo markaan kaftamayo aan kaga yaabo baa jira nin baa buu qoro wuxuu yidhi Soomaalidu beentay sheegaan markaan akhriyay waan qoslay moogtahay waxaan Soomaalidu hadday sheegaan waxa uu sheegaan inay naftooda badbaadiyaan ee uma sheegaan inay cid wax ku yeelaan laakiin haddana waxaan arkay inay Mareykanku shahaadado isku siiyaan ninka ugu beenta badan leh waxa lagu leeyahay buugga fictionka waxa qoray hebel bilad buu qaadanayaa muxuu bilad ku qaadanayaa beentii ugu wanaagsaneyd marka yaa been sheega ma mare yaa sheega beenta waa kaftan waxyaabo aan arkay weeye qofba sibuu wax u eegaa moogtahay buugta maxaa loo kala bixiyaa fiction and non fiction maxay tahay macnaheedu wax beena iyo
okay imise sanadkii imise shahaadada biladood baa la bixiyaa oo beena oo been lagu bixiyaa oo beenta ugu wanaagsan marka sidoo kale ina Soomaalidu wax dambiya oo ay geysatay haba yaraatee ma jirto dambiga ay geysato waxay ku geysataa Soomaaliya oo ay dhibtaa dadkoogay dhibaan dadkoogii bay leynayaan dadkoogii bay dhabar ka tooganayaan dadkoogii bay qarxinayaan yacni waxay dhibayaan Soomaalidii bay dhibayaan laakiin haddii aan eegno nin ma Soomaaliya oo Mareykan halkan ku weeraray ma jirto sidaan anigu aqoontayda aan islaax marka waxaan doonaynaa inaan dadka wax u sheegno Mareykankoona lesson wax alle iyo waxaan xumaanoon la nimi ma jirto waxa weeyaan halkan waxaan u taaganahay waxna citizens heliya hooba Mareykankan la garab taaganahay waan ognahay meeshaad ka timaadeen waan ognahay sababta aad xornimada ugu dagaalamaysaan Mareykanku dadka qura waxyeela waa dadka xeerka jabiya amaasiye ballan ay galeen ka baxa aninka Soomaaliya waxaan ilaahay Mareykan haddaad ballan la gashaan ha ka bixina haddaad warqad saxeexdaan oo ballan ah inaad waxaa samayn doonto ha jabinina dawladda Mareykan la gasha heshiis ee jabisa taariikhdooda ku jirtaa waa in taariikhda akhridaan waa weerarayaan haddaad jabiso ballanta marka hore waxay ku leedahay la galin ballanta laakiin haddaad la gasho ha jabinin waa wixii muslimka ina lagu amray weeyaan marka waxa u baysa Mareykanka nidaamkiisa oo dhan waxa u baysa diinta muslimka iyo kristaanka iyo yahuud waxa weeyaan saddexda diimood ayaa u baysa haddaad lacagta eegto aad jeebka ku haysaan imika maxaa ku qoran in God we trust nu'minu billah ilaahay baan aaminsannahay marka waxa weeyaan dad ay culture-kooga xeerkooga noloshooda ay ku baysgaraysan tahay diinta hadday sidaa tahay waxaan ka codsanaynaa Mareykanka ma nidhaahno haddii meel kale la weeraro ma nidhaahno oo kiristaankii baa na weeraray kiristaankii baa qof dilay kiristaankii baa Soomaaliya dad ku laayay kiristaankii baa ku laayay Masar wax kiristaankii baa ku laayay meel heblaayo weligan miyaad maqasheen idaacadeen miyaad ka maqasheen maya laakiin iyagu waxay odhanayaan hadduu qabsamo muslimkii baa sameeyey muslimkii baa sidan sameeyey muslimkii baa sidan sameeyey marka waxa habboon inaan tababaro oon barno Mareykanka wax u sheegno oo inaahno waa inaad bedishaan habka aad u hadashaan we love you laakiin dadkii baad nagu diraysaan shicibkii baad nagu diraysaan hadday idaacadihiinni sidan samaynayaan nama badbaadin kartaan marka waa inaan wax u sheegnaa maaha inaan idhaahno carruurteennaa xun carruurteennaa sidan samaysay carruurteenna waa in lala dagaalamaa carruurteenna waa in la soo sheegaa bal ii sheega carruurta Soomaaliga Boston jooga wax samaysay ee ku samaysay Mareykan miyaad haysaan qof qura marka sheekadu ma taagna carruurteenna iyo dumarkeenna iyo raggeenna ma taagna waxay taagantahay Mareykan wax u sheegno oo idhaahno we love you inaguna saani jecelahay noo jeclaada dhibtanada naga daay maxaa ku jaban caynkaas they will love it su'aal waaye بسم الله سؤال شيء واحد ويا wax kastoo dhaca ama dhulka gudihiisa ka dhaceen ama dibadda ka dhaceen oo qof Mareykan ku dhaca ama muslim gaal qof ku raba ha ahaado badana Soomaali haddaan nahay ama muslimiin haddaan nahay maskaxdeena inaga isla balgareena arrintaasna waad ka hadashay community-ga kale tana labelkaas way nagu arkayaan oo waa nagu soo bartilmaameed bay nooga dhigteen
marka waxa weeye inta inagu istilmaami lahayn haddayna khalad ka lahayn waa inaan dawladda u gudbino si aysan dadka shacabka iyo ummadaha kale noogu kicin oo inaga ay safarta noogu fiiqin si aan dambi aynan gelin aysa dusha nooga saarin marka waa mentality loo baahan yahay inaga muslim haddaan nahay soomaali haddaan nahay mentality u baahan inaan iska dhaadhicino wax kastoo dhacayaysa inagu yana isblame garaynin maxaa yeelay waxaas badanaa waxyaalaha dhaca waxa inagu shaqo ku leenahay maahan haddii qofkii nala soo doontana waa qof khaldan waa inaan u aragno oo khaladkaasna waa in laga hortago sida maanta shirka uga qabanay waa in shir looga qabta iyadana khalad kastoo dhaco oo inaga nala ku blame gareeyo marka wuxuu see inaga soomaali ahaan aan uga hortegi karnaa laybalyaashaas actually ajendaha dhan ee aan iskugu nimay shirku waxay ahayd inuu sidaa ahaado inayna ahaanin ajenda sidee looga digtoonaan karaa fikradaha qaldan ee argagixisadu ku xajiimaynayaan diinteenna islaamka waxay ku wanaagsanayd sidaan ugu sheegnaa maraykanka muslim iyo kristan iyo Jewish and all of them sidee baan maraykanka ugu sheegnaa inay iska daayaan seeflaboodnimada hadduu qof sameeyo ay barooranayaan leeyahin muslimkii baa caynkaa nagu sameeyey muslimkii baa sidaa yeelay muslimkii baa kaa yeelay sidee baan ugu sheegnaa oon ka tashanoo wax qornoon idhaahno listen aan maxaadarooyin samayno jaamacadaha soo casilno aan tegno yumas aan tegno meel heblaayo biyu aan ardayda la hadalno aan idhaahno listen we are not waxaad noo haysataan sidanaad samaynaysaane sida naga daaya waayo iminka waxaan dhabarka ku qaadanayna waxaan shaqaba ku lahaynba shaqadeenna ma aha waayo wax dhibaato aba maanu samayn haba yaraatee actually labada nin ee la sheegayo waxbay sameeyeen waxay ka yimaadeen Caucasiska Caucasisku waxay tahay waa buuraha Caucasiska macni waxa weeye waxaad maqlaysaa qofkaasi waa Caucasian waa cadaan iyo madow halka runta ah ay ka yimaadeen dadka cadaankii ay ka yimaadeen waxa weeyaan diinta haddii qof kasta halkaa degan qaar baa bilaadiina qaar baa kristana qaar baa muslina waa inay regionka waa inay Russia idhaan Russia dadkiinii sidan ayay noo galeen ruushow naga soo garbaxa inay ahaad inay sidaa idhaahaan bay ahayd laakiin ma ahayn inay idhahaan muslimkow naga soo garbaxa no absolutely no ruushka dadka bilaadiinta ah Chinese-ka had iyo jeer dadka bilaadiinta ah wax I don't know waxaan Soomaalidu u jeceshahay iyo koodi Soomaalidu diin haysata Maraykanka inaga xiga China iyo Ruushka marka meesha uu madowga wax laga siinaya waa halkan meesha jinsiyad lagu siinaya waa halkan Ruushka lagu siin maayo waligii Chinese-ku waligii ku siin maayo Japan waligii ku siin maayo the only place ku siinaya waa Maraykan marka inaku iyaanan isku gijin xarig aananu lahayn Ruushya waxay dhex taalaa Maraykan labadoodu xaajoodeen sheekadu ma aha and May 31st BNN Boston Network Channel aan ka hadlaa waxaan ka hadlaa dumarka Soomaalida iyo how strong I am and how strong you are and Soomaalida maxay dhihi jireen dumar iyo haween baa nolol lagu haweystaa marka waxay idinka codsanaa BNN inaad fiirsatiin and June 27 conference jirto oo around the world laga imaanayo oo la address gareynayo Global Opportunity Africa Wheeler College oo next to Simmons College Obama administration waxay siiyeen 1 million marka aniga iyo gabar la dhaho Saciido oo
I don't know her last name. I think in Riyadh u shaqeyso waxay ka hadlay refugee anna waxaan ka hadlaa women leadership. Marka waxaan aad ugu faraxsanahay labadeena gabdho oo Boston ah in aan fursad u yeelanay conference oo around the world laga imaanayo oo ay joogto Barbara Day oo ah Chief of Staff Obama's administration oo u ah all the refugees, all the NGOs United States. Waxaa kaloo imaanayo in JFK gabadhiisa. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan aniga Saciida fursad u yeelan inaan Soomaalida map kala geyno sababtoo ah it's not just personal contact markaan hadlayno waxaan ka hadlaynaa who we are marka insha Allah waxaan idinka rajaynayaa inaad timaadiin ceegaagna waxaan ka rajaynayaa inuu yimaado maadaama website uu leeyahay Ogaal TV na wada shaqeyn wacan waxaan rabaa inaan idiin sheego shirkan waxaan qaban doonaa insha Allah 4 mar sanadkii waana shirki koowaad insha Allah waxaan isku dayaynaa ilaa inta dadka Soomaalida isaga imanayaan ay rug fiican ka helayaan insha Allah inaan shirkan wadno marka waxaan u sheegayaa dadkii shirkan misgareeyay inaysan shirka soo socda misgareynin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.